daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kaftanka isboortiga barnaamij xiiso gaar ah barnaamijka kaftanka isboortiga waxa halkan idinkaga daadihinaya adigoo Axmed Xaaji Baasto dhanka farsamaduna waa Shirwa Cabdi Samad ka bogasho wacan saaxiibayaal laacibka difaaca uga dheela nabad iyo nolol Omar ayaa doodiisa kamid ahaanshaha kooxdani ka furantay aqalka baarlamaanka laacibkan oo isku haystay inuu dhanka hawada ka weerari karo kooxdii isku walwasha laacibkani ayaa bandow iska saarta goosha waa hadii laga dhalin rabo gool laacibkani oo aan ciyaaro fiican ku soo bandhigin garoonka ay ku dheelan kooxdaasi nabad iyo nolol ayaa shaki laga muujiyay kasii mid ahaanshaha kooxdaasi walow ilaa shalay ilaa asbuucyadii ugu dambeeyay uusan soo xaadirin tababarka kooxdaasi ay gasho balse macalinkiisa ayaa aaminsan inuu laacibkani fahmay dhanka bandowga garoomada sidaasna uga celin karo goolal in la iska dhasho macalinka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa rikoor cusub dhigtay macalinkani aaminsan inuu nabad iyo nolol ku ciyaarayso shax walba uu soo bandhigo ay noqonayso shax khiyaali ah macalinkani ayaa la daaladhacay ciyaar xumo uu soo wajahay maalmihii ugu dambeeyay isagoo dhowr kulan oo isku xigxiga la garaacay macalinkani ayaa garoonka Kismaayo keenay laacibinta ugu qaalisan xilli ciyaareedkan si uu u helo leen abka ay u diidan tahay kooxda nabad iyo nolol laacibada Fortune balbalaarka ayaa farsamooyin waali ah ku soo gashay masraxa caanimada laacibadani oo markii ugu horeysay masraxa lagu arkayay iyadoo qabto surweel MK7 iyadoo line upka ku difaacanaysa heesta dhahaysa bax waxaysaar ugu dambeyntiina ku dikrinaysa Xasan Toob ayaa ka dambeeyay surweelka inaan xirto laacibadan oo jecel qofkii dhaha Fortune balbalaarka inay sawir degdeg la gasho ayaa ku wareersan qaab ciyaareedka reer Muqdisho walow tobaraheeda uu shabakada 5 star u sheegay in aan lagu aaminin karin laacibadani kulamada derbiga laacibka YouTube uga dheela difaaca Shiina Culay ayaana la xaqiijin ka simid ahaanshaha line upka kooxdiisa walow laacibkani lagu caayo hadii uu afka furto inuusan iscelin karin laacibkani ayaa lagu tirinayay banjiga waxyaabihii uu galay inuu ciyaar xumo uu soo wajahay maalmihii ugu dambeeyay walow isagoo xariiqda 18 ku dhaxayay hani UK oo ku naaloonayay waqti badan inay Shiina Culay tababar dhanka ciyaaraha la gasho laacibkani ayaa jecel qofkii dhaha Shiina Culay xilba haya inuu live Facebook degdeg la galo intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka kaftanka isboortiga saaxiibayaal barnaamijkani barnaamijka xiga intaanu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo